وقضب كي يقوم يمسنا وقضب كالله يقانو تلابوين كيس بدلك هدي أن ربا إنا نسبدلو هدي أذربت إنا نسبدشو وما حي تلابوين كأثقاضيسا سيادة سبدشو داود تلابدا كوada aad qaadaysaa wax weeyaan hadii aad rabto inaad isbedesho talaabada koowaad qaadaysaa wax weeyaan marka ugu horeysa xaaladda aad ku jirto waa inaad ogaataa waa noocee waa inaad marka hore adigu analysis ku samaysaa waa sidee xaaladda aan ku jiraa xaaladda marka aad taxliilinayso ee isweydiinayso xaaladda aan ku suganahay waa maxay waxaad isweydiinaysaa noloshu qaybaha ka kooban tahay qayb kastoo kamida qaybaha nolosha ay ka kooban tahay halkeebaan ka taaganahay halkeebay wax ka siihiin oo ay tahay inaan hagaajiya tusaalahan waxa la yiraahdaa qof bani aadanka ah noloshiisa marka laga hadlayo waxa jira 7 meelood oo u baahan mar kastaba inuu runtii ka shaqeeyo oo uu wax ka qabto oo kor u kiciyo 7 meelood waxa ugu horeeya waa adiga iyo xiriirka Ilaahay ka dhaxeeya halka marka ugu horeysa waa inaad hagaajisaa waa qodobka koowaad meesha labaad ee muhiimku waa maxay caafimaadkaaga waa inaad hagaajisaa meesha saddexaad ee muhiimku waa maxay waa family-gaaga iyo reerkaaga iyo xaaskaaga waa inaad hagaajisaa meesha afraad ee muhiimku waxa weeyaan waa dhaqaale inaad runtii maal iyo dhaqaale aad hesho isna waa inaad hagaajisaa meesha runtii maxaa shanaad ee muhiimkeeduna waa maxay waa aqoontaadii kor inaad u qaado oo hagaajiso iyaduna waa muhiim meesha runtii lixaad ee muhiimka waxa weeyaan waa shaqadaad qabanaysa meesha ka shaqeynaysa inaad hagaajiso kor u qaadidina waa muhiim meesha toddobaad ee muhiimku waa maxay waa xiriirkii dadka aad la lahayd iyo bulshada aad la lahayd iyo wax qabadkoodii inaad hagaajiso waxa qof kasta toddobada meelood waa inuu eegaa markuu rabo noloshiisa inuu wax ka bedelo waa inuu isweydiiyaa marka ugu horeysaba toddobada meelood marka soo qaato markaan eego aniga xiriirkii aniga Ilaahay wax xiriirka naga dhaxeeya caafimaadkaaga markaad eegto maaliyadaada markaad eegto reerkaaga markaad eegto mujtamaca sida uu la nooshay markaad eegto shaqadaada markaad eegto aqoontaada markaad eegto saddex su'aalood waan isweydiisaa waxaad isweydiinaysaa miyaa saciid ku ah من راحة كده ريميا حالة عن كسوكناه عافيمات كيجو حالة كسوكية مية بس عيد بانكواه مرالي بانكواه حالة إذا محوها هاي وحبرشوا مرالي بانكواه يعني سيدا أهتان رالي كواه حالة إذا محو مالية إذا خالي مرالي بانكواه وسويدينيسا وحكرت سويدينيسا ما كوكردين كرا هل كأنت هاجر هي ما أنت كرم وجوك كرا كرم وجوك كرايو وحبلا ما قفصن كرا waxa kale isweydiinaysa waa maxay injaaska ama runtii performance waxa aan ku soo kordhin karo ee xaaladaha aan runtii muxuu ahaa aan nolosha ka kooban tahay aan ku soo kordhin karo ee aan qabsan kara waa maxay marka haddii su'aashaadu noqoto toddobada xaaladood marka aad mid kasta inay wax ka siihiin mid kasta inaad u baahantahay inaad wax ka bedesho macnaheedu waa maxay isbedel baad u baahantahay haddii wax barashadaada ay wax ka siihiin waxa macnaheedu waxa weeyaan isbedel baad u baahantahay wax barashada waa inaad wax ka qabataa waxa la mid ah qaybaha kala oo dhan hadaba daawada marka ugu horeysa marka taxliiliso xaaladda aad ku jirto eed ogaato toddobada dhinac marka noloshaada aad ka eegto dhinac kasta wuxuu u baahan yahay iyo xaaladda aad ku sugantahay marka aad ogaato caafimaadkaaga xaaladdu ku sugan yahay maaliyadda xaaladda aad ku sugan tahay adiga xiriirka Ilaahay dhaxay xaaladda aad ku sugan tahay marka arrimaha wada ogaato ayaad su'aashan ayaad qodobkan labaad u gudbaysaa talaabada labaad daawada waa maxay waxay ku leedahay waa inaad dareentaa xanuunka uu kugu keenayo haddii xaaladda aad ku sugan tahay aad ku sii jirto xanuun inteeyaa ku soo gaaraya haddii aad isbedel weydo oo tira sida aan ahay baan imika ahaanaya xanuunka ku soo gaaraya intee buu leeyahay tusaalaan waxaa tiri anigu wax barashadeedu waxaa tiri ma hayso heer jaamacadeed ma habaad tir waxaan haysaa dugsi saraan ayaa tiri marka xaaladaada eegtay inaad dugsi sare ku sugnaato oo sidaas weliga aad ahaato xanuun intee leeg bay kugu keenaysaa عديد أنت لك بكجلنسا دبعتين أنت لك بكوكينسا ولا دبعت هذا أوجاته ده وضوح الأسكوا فقصية علماء نفسه وحي رهضان قفك بين آدك اسم بدله إلا هو حنون دريمه ما كان حنون درينته أي مركز نفس هذا يسبدلسا مركز أوجاته شاتكو إنه آدو حياه أو دبتي سبضان تحي أو عافيماتك أحياه أو دقال أحياه مركز أرنتها على درينته حنون كيسا مركز على درينته مركز يسبدل منايا إن الله أنت أنا حنون دريمن أنت الله أنت أنا ألم كهدريمن ما إيمانيا change يسبدل ما إيمانيا سهد هذا وحي رهضان قفكم مكر ربي إنه يسبدله أو يسبدل أو سمايو وإنه يسوديو شيء كان ربي إنه يسكبدل شيء كان ربي إنه كتاقو حنون أنت لك يجوحيا حنون كيسو هدو بدي حي قفك يسبدليا ده سؤال بهال كان هذا بكوتشرتا وحي تحي وحنون كان
sidee baan u samayn karaa sidee baan xanuunka u ziyaadin karaayo aanu dareemi karaa haddaad rabto inaad caado xun ka tagto jaadka cuntaa ka soo qaad waxaad rabtaa inaad jaadkii aad ka tagto laakiin se waxaad u baahan tahay inaad gaadho heer xanuunka jaadka intuu kugu bato kadibna aad tiraahdo khalaas halkaasaan ku joojiyay jaad sidee baad xanuunka jaadka u badin kartaa waxaad u badin kartaa marka ugu horeysaba inaad taxado dhibaatooyinka jaadku leeyahay dhibaatooyinka jaadku leeyahay markaad naftaada u sheegto eed soo taxdo ta dhaqaalaha ta caafimaadka ta guriga ta reerka dhinac walba marka aad soo taxdo kadib arrinta aad ku celceliso naftaadu ay ku celceliso dhowr jeer oo runtii caqligaaga baatinka ay gasho automatically wuxuu isu bedelayaa jaadkii markii hore aad jecleed wuxuu isu bedelayaa waxaad necab tahay kadibna si yaro ayrad ugu tegi kartaa laakiinse in alla inta jaadka cunitaankiisu kugu weyn yahay macaankiisu kugu badan yahay naftaadu ay xiisanayso mar kasta oo dhibaatadiisa aanad dareensanayn jaadka kama tegi kartid marka dawada wax loo baahan yahay haddaad rabto inaad caadada xun ka tagto dhaqan inaad bedesho waa inaad dhibaatadu kuu keenayo waa inaad badisaa naftaada aad u sheegtaa aad uga sheekaysaa waxaa kaloo idin laftigeeda xanuunka ku badin kartaa haddii aad dhegaysato runtii muxaadaraadka laga sameeyey ama runtii lectureska laga sameeyey ee shaygaa ka sheekaynaya tusaale aan ku siiyo waxaa laga yaabaa salaada subax inaad kama soo qaadba inaad salaada subax kugu adagta inaad u kacdaa waxaad rabtaa dhaqanka inaad bedesho oo salaada subax aad tukato oo waqtigeeda aad u toosto sidee baad dhaqanka u bedeli kartaa waxaad ku bedeli kartaa adigoo badiya xanuunka ay leedahay salaada subax oo ku dhaafta oo sidaad ku badin kartaa inaad muxaadaraad soo qaadato ka warramaya muhiimadda salaada subax ay leedahay ka warramaya qofka salaada subax ka tagaa dhibaatadu galaayo iyo cadaabku galaayo kuwa marka aad dhegeysato maxay imanaya naftaadu inay isbedesho sababta isu bedelaysaa waa maxay waxay isu bedelaysaa xanuunkii waxa kugu batay oo lahaa salaada subax aad ka tagta ayaa kugu batay xanuunkaasi markasoo kugu batana naftaadu way isbedelaysaa baladawada waxaad ogtahay dad baa waxa jira aan salaada tukanba waxaad arkaysaa qofkaasi maalin kamid ah saaxiibkii oo la socda ayaa laga yaabaa saaxiibkii inuu wax noqdo oo dhaawac soo gaaro ama uu dhintaba qofkii isbedelaya salaadii uu bilaabaya way salaada qofkaas uu bilaabaya intii hore uu tukan jirin wuxuu bilaabaya dhibaatadii buu dareemay wuxuu dareemay saaxiibkii ay wada socdeen inuu dhintay isna wuxuu isweydiiyay hadaad dhimato adigoo salaadii tukaneen dhibaato intii laba ku soo gaadhaysa naar miyaanad galeen dhibaatada marka alamka qof markuu dareemo maxay keensanaysaa inuu isbedelo salaadii bilaabo sidaa daraaddeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri badiya xasuusta geerida waa xadiis muxuu rasuulku sidaa u leeyahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu u leeyahay markasta xasuus aad badiso xasuusta geerida maxay imanaya inaad u shaqaysato isbedel baa iman waa isbedelaysaa markastoo aakhira xasuusta maxay imanaya waa isbedelaysaa sidaa daraaddeed baa quraankan uu tilmaamaya wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'miniin markasta waxa la isxasuusiya aakhira iyo muxuu ahaayay iswacdiya la leeyahay maxaa la isu wacdinayaa sababta waxa la rabaa in lagu xasuusiyo shay runtii muxuu ahaayay alam ay lagu xasuusiyo dhibaato la wanaag xasuusata oo qofka haduu wanaag sameyn waayo inuu naar galay waa inuu xasuustaa markaas uu qofku wanaag sameynaya dawada su'aal kala dhinacan taala oo sheegan aan rabay inaan iska bedelo haddaanu ka waran dhibaataba aanu lahayn marka hadday sheekadu sidaa tahayna dhinac kale aad ka eegaysaa maxaad ka eegaysaa waxaad is xasuusinaysaa wanaaga aad ka helayso raaxada aad ka helayso sheegan baad xasuusanaysaa oo badinaysaa tusaale aan ku siiyo ka soo qaabka waxaad qaadatay bachelor baad qaadatay waxaad rabtaa PhD inaad qaadato PhD inaad qaadato isbedelka inaad samaysaa rabtaa isbedelkaas aad ku samayn kartaa waa inaad badisaa oo naftaada uga sheekaysaa fawaa'ida iyo raaxada ku jirta PhD inaad qaadato oo PhD markaad qaato maxaad noqonaysaa qofka aqoon-yahanka ah oo shaqo fiican baad helaysaa intaasoo wax wanaagsan baad helaysaa marka wanaaga markay naftaada ku badato raaxadaas ay ku badato PhD way samaynaysaa marka wax la yiraahdo qofka bini'aadamku markuu rabo inuu isbedelo waxa muhiim ah la yiraahdaa ama waa inuu badiyaa sheegan uu ka tagaayo dhibaatadiisa waa inuu isku badiyaa ay ku badataa marka uu isbedelaya ama sheegan uu rabo inuu sameeyo ee uu socdo wanaagiisa waa inuu badiyaa raaxadiisa waa inuu badiyaa oo naftiisa ku weynaata salaada maxaynu u tukanayna salaada waxaanu tukanaa jannada helo marka jannada waxa weyn waa wanaag in raadinayno jannadii baa inagu weyn taas maxay keentay dhib ka soo gaadhay inaad tirado waan maxaa soconaya sababtoo wanaaga kugu weyn aad rabto inaad gaadho saadira daawad culimo nafsiga waxay tilmaamayaan isbedelka hadii aad rabto inaad samayso daawada waa inaad waxan aad rabto inaad iska bedesho dhaqankan aad rabto inaad bedesho ama meeshan aad rabto inaad gaadho waxa loo baahan yahay inaad isku badiso dhaqankan aad bedesho xumaantiisa iyo waa inaad badisaa iyo dhibta ka soo gaadhaysa
halkaad u socotana wanaageeda iyo raaxadeeda waa inaad badisaa markaasuu isbedelku ku imanaya dawada qodobkan waxa raacaya isbedelka aad rabto inaad samayso waa inaad ka dhigtaa inuu daruuri yahay haddii isbedelkan ku yahay wax yar oo iska simple ah aad u haysato option aad u haysato isma bedelaysid waa inaad naftaada u sheegtaa inaad isbedeshaa inay daruuri tahay markaas naftu dareemaysa isbedelku inaad chadka ka tagtaa inuu daruuri tahay markaad naftaada u sheegto sigaarka inaad ka tagtaa inay daruuri tahay markaad naftaada u sheegto markaas uu isbedel imanaya dawada qodobka labaad markaad samayso talabada labaad markaad samayso talabada saddexaad baad u gudbaysaa talabada saddexaad waa maxay already xaaladaadii waad soo ogaatay oo waxaad tiri xaaladda aan ku noolahay marka noloshadii eegay dhinac kasta aan ka eego waa sidaa waxaad kaloo ogaatay dhibta ku jirta haddaad xaaladan kusii jirtana iyadana waad ogaatay qodobka saddexaad talabada saddexaad baa raacaysa waa maxay waa inaad caddaysaa halkeebaad u socotaa waa inaad caddaysaa maxaad rabtaa isbedel baan samaynayaa keliya kaa socon mayso halkeebaad isbedelka aad ka samaynaysaa waa inaad tiraahdaa isbedel baan samaynayaa waxbarashadaan ku samaynayaa su-aashu waxay tahay maxaad ku samaynaysaa waxbarashada waa inaad tiraahdaa waxaan bilaabayaa bachelor degreegii koowaad ee businesskan bilaabayaa sanadka warkaagu waa cadiyay marka isbedel baad samaysay xaggii waxbarashada u samaysay waxaad tiri isbedel baan samaynaya xagga caafimaadka waa maxay isbedelkaasi waxaad tiri maalin kasta 30 minute ayaan ordaya oo exercise aan samaynaya waa isbedel taasina xaggii caafimaadkaad u qaatay marka waxa laga rabaa daawade oo talabadan saddexaad tilmaamaysa waa inaad xadidaa waxa aad rabto inaad samayso hadafka aad rabto inaad gaadho ee aad isbedelkan u samaynaysa waa inuu xadidan yahay waliba daawada qodob kala raacaya waa in shayga aad tiri waan gaadhayaa aad xadiday waa inuu raaxadiisu aad u badan tahay waa inaad raaxo badan ka helayso haddii ay isku mid noqdaan halkii aad ka imanaysay wixii aad bedelaysay raaxadii aad ka helaysay iyo halka usoo raaxadiisu haddii isku mid noqdaanna isma bedelaysay saa daraadeed waxay idhaahdaan qofku halkuu u socdo ama hadafku raba inuu gaadhaa waa inuu noqdaa hadaf xamaasad wata waa inuu noqdaa hadaf xamaasadaysan oo ku kicinaya oo naftaada kicinaya oo naftaadu jeceshahay waa inuu noqdaa taasi hadday timaado isbedelku waa imanaya tusaale aan ku siiyo waxaad tiriniyo waan isbedelayaayo salaada subax waqtigeedan tukanaya jamaacan ku tukanaya waa hadaf cad waa warcad marka tiraado salaada subax baan tukanayaa subax kasta waan tukanaya jamaacan waa warcad xamaasadna u wataayo sababtoo ah mutcada raaxada aad ka helayso salaada subax oo tukataa wax loo dhigaa ma jirto de waa janno marka waa hadaf aad muhiim ah ku kicinaya marka hadafka aad samaysanaysaana ama shayga aad rabto inaad ku bedeshaana waanu sidaa ku kicinaya dawada qodobka marka aad cadayso talabadaas markay ku cadaato eed xadido noloshaada markaad qiimeyso toddobada dhinacba markaad ka eegto toddobada dhinac kasta waxaad rabto inaad ka bedesho iyo halka aad rabto inaad gaadho marka aad sheegto talabadan baad u gudbaysaa oo talabadan maxay ku leedahay talabada waxa ku leedahay waa inaad sheegtaa sida aad ku gaadhayso yani khudada aad ku gaadhayso qorshaha aad ku gaadhayso techniques-ka aad ku gaadhayso waa inaad sheegtaa waa inaad tiraahdaa waxaan ku gaadhay ka soo qaadba waxaad tiri salaada subax waa inaan kacaa su-aashu waxay tahay salaada subax sidaad u kici kartaa sideebaad u gaadhi kartaa waa inaad xadidaa waa inaad tiraahdaa intaasoo talaabaan qaadaya habeenkii horaan u seexanaya waa talaabo oo waqtigaasaan seexanaya waa talaabo saacad baan soo iibsanayay toosisa oo waqtiga ay toosisa iyadana waa talaabo kale saacadda haddaan ku toosi waayo qof toosiyaan samaysanaya iyadana waa talaabo kale macnihiigu waxaa lagu leeyahay waxaan hadafkan aad xadiday ee aad tiri waa inaan gaadhaa waa inaad runtii caddaysaa sida aad ku gaadhayso dawada marka aad sheegayso sida aad ku gaadhayso dhowr arrimooda muhiima jirta waxa laga yaabaa sheegan aad tiri waan gaadhayaa inaad macluumaad badan ka haysan baa laga yaabaa marka maxaa lagaga fadhiyaa macluumaadkiisa waa inaad raadisaa tusaale aan ku siiyo waxaad tiri waxaan rabaa inaan gaadho inaan bachelor bilaawaan rabaa baad tiri degree oo business ah mana garanaysa sida loo bilaabayo halku ka bilaamayo maxaa lagaga rabaa macluumaad inaad raadiso arrintaa ku saabsan dadka waxa og waa inaad waraysataa waa inaad runtii iyaga war ka heshaa qaab markaa lagu gaadhayo sax waa inaad ogaataa markaad ogaato sheegan aad rabto sida aad ku gaadhayso iyo dariiqadaad u marayso markaas wax ayaa suurtagal ay noqon kartaa inaad gaadho shaygaasi dawada talabada marka aad samayso waxaad samaynaysaa talabada shanaad talabadan maxay tahay daawad talabadan shanaad daawada waxay tahay waa inaad u kala hormarisaa sida ugu kala muhiimsan yihiin runtii qodobadan aad tiri waan iska bedelayaa meelahan aad tiri isbedel baan ku samaynayaa waxa lagaga fadhiyaa waa in ka ugu muhiimsan aad u soo horeysiisaa sida uu kugu kala muhiimsan waa inaad ku bilowdaa
وأنا تصالح أنا أدات ترى هدف بان سنة كفولينيا طبعا كهدف السنة كان أدفولينيسو إيه ربطينا تقالوا هدف كوكو مهم سن هذا وانا تكون بلا وضع هذا وانا تصهر من الساعة قلب كلاك هالراعية وإسن آدم مهمة وقلب كان محورنا إياه وإن الفوكس كسارتها وإن الديرة سارتها كوكو صهرية كوكو مهم سن أو كلية وانا تكشقيسة داود هاي سكودين انتاس أو شيء أو كلا دون وهدف هل مرينا تكوضا شقيسو waxa la qodobada ugu muhiimsan runtii guusha waxa kamida qofku awoodiisa inuu saaro hal shay inuu saaro isku day hal shay oo kaliya tobanka hadaf ee tiri waan gaaraya mid kamida soo qabo waxa bishan aan ku bilaawaya weeyga maan ku bilaawaya maanta ku bilaawaya taada wada marka aad samayso qodob kala raacayo waa inaad tadarruj samaysaa in yar waa inaad isu bedeshaa hadaa tira isbedelkii hal mar baan wada sameynayana idan way adkaanaysayo meel ma gaadhisid isku day in yar inaad ku bilowdo sida uu kala fududahay waa inaad u kala bilowdaa daba talaabada marka aad samayso talaabada lixaad baad u gudbisaa talaabada waxaad waa maxay waa action wana ficilkii bilowdaa ficilkii waa inaad bilowdaayo shayga ugu horeeya waa inaad maanta ku bilowdaa waa inaad ku bilowdaa maanta waxa la iraahdaa oo qawaacida kamida runtii haddii aad qorshe dejiso meesha aad fadhidaha ka kicin ilaa qorshaha wax kamida aad bilowdo marka isku day inaad markiiba ficil had samaysaa isku day halkay dadku ku kala xaraana waa halka dad badan baa qorshaha samaysta waliba qorshaha aad u macaan samaysta laakiin maxaa dhaca qorshaha markay dhameystiraan actionkay ka tagaan actionka hadaanad qaadin meel ma gaadhisid qorshahaguna wax kama jiraan buu noqonaya marka isku day wixii aad soo samaysatay tobankii hadaf ee aad tiri waan gaadhaya eed waliba sida uu kala muuseen uu kala horeysisay waxa isku dayda actionkoodii hadda inaad qaado daawad qodobka ugu dambeeya ee toddobaadana ku soo khatiminaa wax weeyaan actionka marka aad qaado actionkaasi waa inuu noqdaa mid joogto ah waa inuu noqdaa oo maalin kasta aad sameynayso waa inuu noqdaa qodobka waxa daawada inoo raacaya oo isla qodobka toddobaada waa inaad yeelataa saaxiib wanaagsan oo kugu kaalmeeya runtii hawsha aad bilowday saaxiibku wax la waa qodobada ugu muhiimsan horumarka hadii aad wada cid kugu taageertaa ama dadka aad la socoto hadii kugu taageeri waayaana iyada lafti wax laga inaad ka leexata laga yaabaa qodobka waxa ku raacaya bay'ada aad ku sugan tahay waa in noqotaa bay'ad kugu kaalmeynaysa qorshahan aad dejisay isbedelkan aad rabto inaad samayso waa inay kugu kaalmeynaysa oo hadii aad jaadka cunto oo wali aad la sii socoto asxaabtii jaadka cuni jirtay wali asxaabtaadii ay yihiin wali aad la sii socoto isbedel sameyn maysid maxaa lagaga fadhiyaa hadaa jaadka rabto inaad iska bedesho meeshii jaadka lagu cuni jiray iyo cid cuni jirtay intaba waa inaad ka hadhaa waa inaad bay'ad kala samaysaa waqtiga jaadka cuni jirtayna wax kale waa inaad gelisayo timeka waqti kale aad gelisaa isbedel inaad samaysaa aad bay muhiim u tahay bisha rabaadan waliba inaad samaysaana waa daruuri sababtoo iyada kugu kalmanaysa isbedelka